mashruucan oo muddo sanada dhismihiisu ka socday gudaha degmada Salaxley isla markaana hadda la furay ayaa isugu jiray qaybo kala duwan. qaybta cusub ee degmada Salaxley ay ka furatay shirkadda Star Group waxa faahfaahin ka bixiyay ganacsade Xaaji Ismaaciil Cabdi Xasan Cagaweyne kaasi oo ka waramay qaybaha uu ganacsigaasi ka kooban yahay. mar labaad waxaan ku faraxsanahay maanta in hoteelkii Star Salaxley laga furay maanta xariga laga jaray kaasoo aanu ku soo dhaweynayno dadweynaha reer Somaliland iyo dhammaan dadka martidaaba inay nagala soo qayb galaan. hoteelkii laga bilaabo maanta waa furan yahay, madaxweynahana xariga inooga jaray. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta xarigii laga jaray. runtii waxaan u sheegaynaa dadweynaha dadkeenu hoteelkan wuxuu tari doono laba arrin baa jiro. dadku markii hore miyi iyo magaalo la kala ahaa, dabeetana miyigu magaaladu waxay u bixi jirtay miyiga. imika intii dambe waa laga kaaftoomo dadkii xaalado badan oo la soo dhisay miyigii xamili kari waayay. dabeetana waxaanu doonaynaa inaanu iswaafajinno miyigii iyo magaaladii, taasoo aanu dabeetana ugu talagalnay inay dadku magaalada markay soo caana doonanayaan ay yimaadaan. wax badan oo kalena way qaban doontaa, ay ka mid yihiin in geeli meelahan ku xariisay caano geelo saafiya ay heli doonaan, inay waxyaabo badan heli doonaan, leyd wanaagsan iyo nolol wanaagsan ay ka heli doonaan, in ay hay'aduhu markay yimaadaan ay halkay ku shirayeen iyo halkay digayeen baa ay leedahay, qolalkii xafladaha ay leedahay, qolalkii hurdada ay leedahay, cuntadii bay leedahay. wax walba way ka kooban tahay. meelo lagu ciyaaro dhalinyarada cuslaatay ama dhalinyaradu ay kubadaha ku ciyaaraan bay leeyihiin. intaasoo dhammaanu maaragtay ayaanu ku soo dhaweynaynaa. dhinaca kale injineer Axmed Karaama oo ah maamulaha shirkadda Karaama Construction Company ee qaabilsan dhanka dhismaha isla markaana hirgeliyay mashruucaasi Star Group ay ka maalgashatay gudaha degmada Salaxley ayaa halkaa ka hadlay, waxaana uu ka waramay dhismahaasi iyo qaybaha uu ka kooban yahay iyo waxyaabaha uu ku soo kordhin doono degmada Salaxley. كل أنا جو حي فرنون كشركة هان أنا أحمل كيني شركة الكرام كونستراكشن مجا يقولون يا أحمد محمد عثمان إن هنقو ستار جروب أوف كومبانيز فرنهانتي ستار وحكا قبضتي أو أي كبس الدقمة السلاحلي مشروع عاد كوبلارن قروح بين الأركيو وحيلي مادن هالأبور وناكسن والدقمة دي كوبع نقالة يا كوبع ضداد يا اسمه أهم بكرو قاضية كل وحنا كل يخدين إن الدد كودي وحكسو عليان marka koobaad waxaan u baarigayaa oon leeyahay ilaahay ha idin barakeeyo oo ha ka dhigo hoteelkii ummadda kale ee idin la midkina ay ku soo hirtaan qaar la mid ah idinkana Allah ha idin barakeeyo magaciina iyo muuqigiina kor ha ugu qaado. mar labaadka waxaan ku xigsiinayaa anigoo ah mulkiilaha shirkadda Alkaraama kulli runtii annaga laftayada waxay nagu aamineen Star Group inaanu u fulino mashruuca intan laga balaaran. waxaan mar labaad mahadnaqayaa ilaahay nagu asturay iyo Star Group oo nagu aaminayna mashruuca u fulino. dhinaca kale waxaa halkaa ka hadlay mas'uuliyiin madax dhaqameed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada Salaxley kuwaasi oo soo dhaweeyay isla markaana bogaadiyay sidoo kalena u duceeyay shirkadda Star Group qaybta cusub ee ay ka furatay gudaha degmada Salaxley. sidoo kale waxaan hambalyeeynaa oo maanta dhex taaganahay kambaniga weyn ee Star Group oo maanta aad arkaysaan inay ka maalgashadeen degmada Salaxley dhismo weyn oo iskugu jira hurdo iyo cuntoba runtii oo beer raaxana leh howlashii waaweynaa leh oo lacag ka badan 500,000 ama in ku dhowi runtii ay ku baxday. waxaan leeyahay ilaahay idin barakeeyo waana ku mahadsantihiin. aad iyo aad baan Alkaraama Construction Company aad iyo aad baan idigu hambalyeeynaa. ganacsatada kalena waxaan leeyahay ku soo dhiirada. waxaan sidoo kale hambalyeeynaa Star Group oo ganacsiga weyn ka maalgelisay shirkadda Alkaraama Construction oo iyaduna dhismahan fulisay. runtii waxay farxada maanta dhismahan oo ahaa qofkii koobaad ee dhagax dhigay inaan maanta taaganahay iyadoo xariga laga jaray iyadoo meeshaas ciid boodaysana waxaan ahaa qofkii koobaad ee dhagax dhigay. runtii in la maalgashado degmadana aad baan dadka ugu boorinaynaa. waxaa kaloo iyana u hambalyeeynaa Star Group oo hotel casri ah oo qurux badan ka dhisay magaalada Salaxley. degmo waliba haday saasoo kale iyana ay u dhisato meel ummaddu u iman karto oo la istaago runtii waa qurux. degmooyin kalena waan ku dhiirigelinaynaa inay ganacsatadoodu ay maal gashadaan oo ay dhisaan maxay ahayd meel ay ummaddu maxay ahayd isugu iman karto. waan u mahad celinaynaa aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa Star Group. kaloon hambalyeynaya kambaniga Star Group Ismaan Cabdi Xasan iyo Ismaaciil halkan la jooga Xaj Ismaaciil oo si gaar saaxiib u nahay. waxaan leeyahay idin barakeeyo ganacsigan quruxda badan ee qofkii arkaa uu ku farxayo oo asturay deegaankan
oo wafuudda ka imanaysa kililka shanaad iyo Somalilandba yani ay ku soo degi doonto kambanigan waxa la ilaahay u barakeeyo waan naga farxisay meel qurux badan oo dadka lagu soo dhaweyn karo oo lacag badan la geliyay ayaa noo muuqata ilaahay idin barakeeyo waxa ay ka furtay hoteelkii ugu casrisanaa degmada Salaxley taas oo ay noqotay inay ku dhiiradaan in ay dalkooda iyo dadkoodaba sidii ay mustaqbal fiican iyo shaqo fiican ay ugu abuuri laayeen dhalinyarta halkan joogta maadaama hoteelka inta leegi maanta dhex taaganahay shaqaalaha ka shaqeynaya aad u badan yahay waana dadkii degmada Salaxley ku noolaa ayaa shaqaalana laga qaatay markaas waxaan leenahay ganacsatada reer Somaliland sida ay Star ay ugu dhiiratay in ay degmadii wax ku celiso ay ka soo jeeday waxaan ka soo qayb galnay Star Group oo Salaxley ka furtay hotel aad u qurux badan oo cusub oo madaxweynuhuna uu ka soo qayb galiyo furitaankiisa iyo xadhigka jarkiisa uu samaynayo ma sha Allah shirkadda Star Group ha barakeeyo waa hotel aad iyo aad qiimeeyo qaayabo loo qurux badan ma sha Allah maanta waxaan dhex taaganay hotelkii cusba Star Group ee laga furay degmada Salaxley waxaan leenahay inamadeenna inoo sameeyo hotelka ilaahay ajar iyo xasanaad haydu ku siiyo quruxda loo soo kordhisay kulli hadalkii kale waa la dhameeyay anu kulli hotelkan yaro ducaan hotelkan u ducaynaya صح hotelka ayaan u ducaynaya waxaan ilaahay hotelka iyagow ducaan ku hibaynay duco ayaan ku hibaynay hodan aan la kala gurin oo hilib iyo baruur bale oo harinayo shacabkii iyo hadhaweyna kaayeen آمين ده إلهي هذا عوينه اللوجية ستار جروب أف كمباني هوتيل هيك ديسين سلح لي إلهي وحنا قبرينا لعقتي أي جليين يا مالكي جليين إلهي متكبدين نكسيو أيجنا سبحانه وتعالى إلهي إنه أبال مرين كسيو وحكرنا آذ وفرح سنة هاي مانت إن سلح لي أي هالشيء هوديل آذ وقالية أول قد الحيسو أول قد نستو أنا جاي عايزين هذا حالي وان سيحذي إله ما نقول دارتي حالي وان كهلي ولا الكيد أنت لا ليجين وويني ده ما شاء الله وانو بارقين وعقلين هادنا غينا نمان كان مشروع عاسميي دقمد السلحلي المعبد حسن إذا ما ستار جروب أيينو عاديات وهم بلييننا أما وقوم هادنا غينا المشروع أي كفوليين دقمد السلحلي هي الصومال الآن هي ديال لوني ضل كبك السوكريين مشروع عين تعلق أيينو عاديات وهم بلييننا wuxuu soo kordhiyay magacaad iyo aad iyo manfac labadaba uu ku soo kordhiyay kolka Allah barakeeyo waxa soo kordhiyay Star Group Star kolka aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa Mawlid Maxamed Saciid degmada Salaxley